waxaan runtii caawa sharaf noo ah inaanu daah furayno ololahan ujeedadiisu tahay in la horumariyo akhriska iyo qoraalka af Soomaaliga. ololahan waa laba qaybood. qaybta koowaad waxa weeyaan in la sii ballaariyo barnaamijka daaris oo qof kasta oo u baahan la gaarsiiyo. qaybta labaadna waxa weeyaan in goobaha imika jira ee lagu barto af Soomaaliga oo intooda badan wasaaradda waxbarashadu gacanta ku hayso iyagana la kordhiyo la sii ballaariyo waddanka oo dhan la gaarsiiyo. sideen wada ognahay dadkeena wax ka yar 45% unbaa wax akhriyi kara, taasoo runtii aada u hooseysa. haddii markaa dadkeennii intii badnayd aanay xataa akhriyi karayn afkoodii hooyo, horumarka aynu higsanayno ma gaari karayno. marka maanta waxaynu runtii fursad u haysanaa in inagoo isticmaalayna technology cusub in ilaa 90% la gaadhsiin karayo dadka wax akhriyi karaya. qofka maanta barnaamijka la soo degaa 50 saacadood ayuu ku baranayaa, ayuu ku gaarayaa heer uu si fiican wax u akhriyo. halka qofka qalin iyo buug qaata ee class taga ee aan technology isticmaalaynin uu u baahan yahay 400 ilaa 500 saacadood oo soconaya muddo sanad iyo wax ka badana. waxyaalaha runtii fududeynaya keenaya in barnaamijkan si dhaqsa afkii loogu barto waxaa ka mid oo kale marka qofka la soo dego barnaamijkan uma baahanayo internet ama khad oo casharadu waxay ugu jirayaan boqolaal cashar baa ugu jiraya telefonkiisa. marka qofka imika meel miyiga jooga ama tuulo jooga wuxuu u baahan yahay oo keliya marka uu soo dejisanayo inuu helo oo uu tago meel internetka leh. wixii intaa ka dambeeya 5 bilood 6 bilood ayuu iska maqnaanayaa waxna baranayaa. ilaa hadda 80,000 oo qof baa la soo degay intii aan bilownay barnaamijka. 80,000 40,000 oo ka mid ah Hargeysa ku nool yihiin. waxaanu barnaamijka u samaynay qaab aan isleena way xiiso badan tahay oo sidii gameskii iyo loo ciyaariyo kala weeyaan. qofkii waxaad moodaa inuu iska madadaalanayo waxna uu baranayaa. waxaanu khaasatan taa u samaynay si barnaamijku waqtiga ula qaybsado bahalka TikTok iyo Facebook dadkii waqtigii wax baran lahaayeen ay gelinayaan. Hargeysa ka sokow magaalooyinka kale ee barnaamijka aad looga soo dejistay laga isticmaalo waxa ka mid ah Muqdisho talabaada, waxa ku sii xigta magaalada Garowe, Boorama, Boosaaso, Jigjiga. marka sida graafkan ka muuqata magaalada Burca runtii iyadoo meel hoose soo gashay. marka waxyaalaha aanu samaynay barnaamijka waxa ka mid ah si xiiso u yeesho dadka qofku marka uu cashar dhameeyo neefaf geela ayuu ku guuleysanayaa oo daruuraha ugu jiraya. marka qofka 100 halaad ama kadin geela helaa waa qof markaa wax akhriska bartay weeyaan oo markaa dhibcahan wax ku qiyaasayna waa halahaasi. marka Hargeysa waxay ku guuleysatay wax gaaraya ilaa 500,000 oo neef oo geela. marka magaalooyinka kale lagu dheerariyo runtii dawadanka halkay say uga horeeyaan oo 40,000 waxa laga yaabaa marka la isku celceliyo qofkii wax ka badan 10 halaad buu helay Hargeysa weeyaan. marka reer Burco geeloodii cirka lagu maalayaa. waxaan se isleeyahay reer Burco markay bahalka u soo jeedsadaan ragii geela yaqaan boqolaan in kadin geela la helayo in cid walba dhaafi doonaan. barnaamijka runtii wuxuu furo yahay barnaamijyo kala daba socda oo lagu baranayo Ingiriisida, xisaabta iyo waxbarashada iskuulada la soo koobay, xirfado Carabi iyo diin oo intooda bilaash ah. mashruucan hay'ad shaqo kuma laha. fikradiisa iyo lacagta lagu maalgelinayo iyo qorshaha lagu dhaqan gelinayo inaga leh.